الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم دمان أصحابتا channel ku xidhan aad baan idin salaamay insha Allah taala maanta mawduuceena waxaynu kaga hadli doonaa dhalinyarta maanta waxa ugu talagalay inaan bal inagu isla hadalno maxaa caybaheena ah oo saxnaa insha Allah taala video inta baan ugu talagalay wala socon doonaa waxaynu ognahay ka dhalinyar ahaan in adduunkani isbedel fara badan ku yimday horumar fara badan ay yimaadeen dhaqan fara badan oo cusub oo wanaagsan iyo mid xunba la keenay caalamka oo dhan bal hadda insha Allah waxaynu isku eegi doonaa bal caybaheena haddaynu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed naga khaldan bal insha Allah inta baynu bal ku eegi doonaa ciwaankeena haddii la qadaro horta waxaan oran karaa anoo fikirkayga gaaban aragtida gaaban kaashanaya insha Allah taala bal maxaa caybaheena noqon kara ka dhalinyar ahaan Soomaalida aan ka tirsanahay dhalinyartaan ku jiro anigu maxaa caybaheena ah kow waxa oran lahaa ceebteena koobaad waxay noqonaysaa manhiin dad diintooda islaamka ah yani wax badan ka yaqaana dhalinyartu inta iskoolka dhigatana waxay ku mashquulshaa oo mawaadigaas ka yar tahay inta wax baratay diintana baratay ee kitaabka iyo quraanka xifdadayna hadhow markay dhameeyaan iyagana dadkay raacaan oo ma aha dad maxay si daba gala quraanka xifdintiisii iyo tafsiirkii barashadiisii yani waxaan oran lahaa qaybta koobaad iyo ceebta koobaad ee leenahay waa dad aan ahayn dad diintooda wax fara badan ku og dad diintooda haysana meel kasta laga soo gali karaa oo daldalool fara badan ba leenahay dhalinyartuna imika in la soconaa in badankoodu ma aha dad si fiican yani diintooda garanaya marka meeshay doonaan way ku dhici karaan waxaana sahlanaatay in dhalinyarta imika la doofsan karo qodobka labaad insha Allah isleeyahay waa caybaheena ka dhalinyar ahaan ama aan ka tirsanahay waxa weeye waxbarashada inta iskoolka dhigata waxay ku mashquulshan tahay inay waxa iskoolka lagu dhayo imtixaan ku galaan ay diyaariyaan waxay ku kooban yihiin maadooyin kala dhigayo ma koobna waxbarashada kale ee internetka haday tahay waxyaabaha kale faa'iidada ah had iyo jeer haddaynu dhalinyar nahay runta markaynu isku sheegno taas way naga maqan tahay manhiin dad markaas meel dheer wax ka eega ka dhalinyar ahaan dadka culimada dhalinyarta inteena culimada yahana xadiista iyo diiniga bay ku mashquulshaa inteeda iskoolada dhigatana dee maadooyinka yar unbay ku mashquulshaan intaa kadib qofkii markuu soo bartay maadooyinkii iyo maxay waxyaabihii uu dhowrka sano 12 sano soo dhiganayay markuu ka baxo wuxuu ka hayay ma jiro oo ka waxa soo koodhanaya bariga form 3 waa la igu dhigay form 4 baan ku dhigtay form 1 waa soo maray oo ku oranaya laakiin ma jirto waxa uu soo celin karo ceebteena labaadna wata marka waxaan ku talin lahaa in aynu noqono dad meel dheer wax ka eega oo iyagu wax raadsada research farban sameeya tacaalamku waa horumaray aqoontuba imka waa bahalkan yar wada haysanay jeebka ku sidino isaga hawada inaga saari kara oo khadka inaga bixin kara isagaana horumar gaarsiin kara waa taladayda ceebaheenaasina waxa kamid ah inaynu hayn dad maxaynay indheer garad ah hadaynu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed way jiraan dad fara badan oo wanaagsan ma sha Allah malihii Soomaalida oo dhan dhalinyartu waa susay laakiin way nagu yar yihiin inteena dhalinyartu waxaan u diyaariyay video haddii canaan badan jirto la iga raalaado laakiin waxaan u diyaariyay inaynu ku baraarugno ceebaheena ceebaheena hadaynu garanayn maxaynu baraarugnaa ceebaha saddexaad ee leenahay waxa kamid ah dad dhaqanka laga doofsan karaan nahay waa run dhaqanadeena kuma adkin haddaynu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed waxaana taa ku cadeynaysa indhahaaga ka ku cadeynaya oo indhahaaga ku arkaysaaba dhalinyartu waxa jirta dhowr adoo sanadka hor waxa jirtay surwaal inta hoos laga duubo in sarbalaaha yani meel ka yimid ma jirin laakiin dhaqan kale oo dad kale waxa aynu qaadanay waxa jira qaab loo xirto aynu garanay qaarsa u xirtaan dadka reer Yurub iyo aan ku tilmaamnay dadka kale waynu ku dayanaa waxa jirta macala ciyaaryahanadu magacaan ay leeyihiin oo isku bixinaa يعني waxaynu uga jeedaa taasina manhiin dad dhaqankooda ku xiran oo dhaqankooda haysta ma jiro dad waxaanay weynagu yar yihiin ma jiro orma oran karno laakiin weynagu yar yihiin inta dhaqankayga si fiican oo haysta dhalinyar ahaan marka taasina waxay keenaysaa dhibaato aad u fara badan xaqa xiyarashada haday noqoto timaha libiska haday noqoto aad baynu uga liidanaa wallahi dad kale ku dayanaa marka runta soo sheegno dhaqankeeni fiicnaayo toosnaa ee Soomaaliyeed oo in aad baynu ugu yar yahay taasina waa ceebaheena waxa kale ay sheegaan dadka caafimaadku dadka xidha bahaladan
aynu imika fashionka u naqaano adag baalada dadka ku dhega ee surwaalada layskaga dhiga birta inay caafimaadka ugu daran yihiin oo caafimaadkayna u fiicnayn waxa taasoo dhan maxaynay kaba xunba oo la yaabaysaa waxaad arkaysaa qof surwaal jilbaha ka jeexan xidhan oo ku odhanaya waa modern weeyaan oo waa wuxuu leeyahay waa khatar inkuu soo baxay wixii cusub caalamkaa jecel buu leeyahay wuu ku faanaya xagga haddaynu eri kan idhaahno waalidkeennii iyo dee waalidkeenu markii berigii hore intaynu nagu bal horta soo gaadhin sidaynu sheekooyin ka maqalno dadka qaarna usoo joogeen inta daawan karta videogan dadka qaar daawanaya usoo joogeen markay arkaan surwaal dilaacay ama shaar meelaan ka dilaacsan waxay samayn jireen waa lasoo ururin jiray kadib shaarka waa la kala goyn jiray waa la isku toli jiray dee dad waxaynu nahay soomaalidu boolasha ku badnaa yani meelahaas baadiyaynu waxaynu reeguuraabu ahaa yani boolka ayaa lagu toli jiray hadda tiibaas isbedesho waxay noqotay duu surwaalku waxaa ka dilaacsan yahay waa fashion weyn dariiqad ku mari kartaa ta kale haddaynu qodob kale kan idhaahno haddaynu aragno qof xidhan wax jeexjeexan waxaynu odhan jiray qofkaas uu waalan yahay oo dee qof in uu caadi yahayn laakiin iminka waxaasoo dhan waa laga tegay wixii cusub caalamkaa jecel taasi waxay ku tusaysaa in dhaqanka soomaalida dhalinyarta xagga laga soo wajihi karo oo ay ganacsatayaashu soo wajihi karaan iyagoo doonaya inay meheradooda ku socodsiiyaan waxaa cajaa'ib ah maraan weydiiyey inaan asxaab nahay maraba inaan magaciisa sheego waxaan ku yidhi imsaa lagaa siiyey bahalkan waxaan moodayay inuu odhanayo $5 maadaama de wixii raqiisa laiska iibsan karaa maas yidhi laakiin waxa uu ii sheegay inuu xambayahay $13 iyo $14 qiimahan ku iibsanaysid waa qiimo aad u qaali ah wuxuuna u googo-an yahay wallahi waa dhib aad u weyn weeyaan dhalinyarteena haysata waxaan odhan lahaa ka waantuun surwaal $10 qaado oo mid fiican oonan dildilaacsanayn oonan lagu odhanayn kii waalnaa lagaana hadlayn dee kaa iska soo iibso kaabaa waxay la tahay inuu aada uga fiican yahay qodobka u dambeeya insha allah aynu dhalinyar ahaan ceebteenu waxa weeye isyasitaanka uu inagu badan yahay dhalintu marka ay isku timaado ama dhalintu qaari waxa ay sameeyaan markay arkaan qof wanaagsan ama dad ka wanaagsan inay yasaan inay magacaan badan u bixiyaan waxay noo tusaale ah taasi qofku hadduu miskiinka ku badan yahay oo cibaadadiisa iyo xaafadda iyo waxyaabaha ka dhexeeyo oo de qof toosan oo ilaahay jidkiisii haya yahay waxaa loo bixiyaa magacooyin fara badan ayaa loo bixiyaa ha noqoto khamiis weyne ha noqoto allah mustacaan xerow waxyaabo badan baa loo bixiyaa hadduu waa kaftan xagooga ka tahay yani liiditaan laakiin xagga allah subxana watacaala dee qofka sharaf buu ku leeyahay waana ka sareeya iyaga kuwa waxa u bixinay waana waxa weeyaan waa liiditaan kawaga xayaraanka maxaynay meelahaas surwaalka jiidanaya waxa la go-an xidhanna waa geesi baa loo bixiyaa iyo dee waxaa la leeyahay waa nin wanaagsan taasina khalad wey qofkii wanaagsanaa waxaynu ma dhiirigelinno waa in la yasayaa kii de dhinaca kaliya hayina lama soo jeedinayo isagiiba yani loogu daraya si usii waasho yani lama qabanayo waxaan inala wadaagi doonaa hal qiso oo adugu 2 sano ka hor aniga iyo asxaabteeda igu dhacday intay daawanaysa kulli way daawanayaan baa laga yaabaa waxaan hayn rag kubadda iska ciyaara oo adugu naadi ah aduu la soo maray waqti ooga ila tahay inuu soo dhaafnay 3 sano ka hor marka waxaan hayn dad marka ay kubadda ciyaarayaan waqtigeega ilaaliya isma faaninayno laakiin xaqiiqdu jirtaa waxaynu dhamayn jirnay kubadda markastoo la eedaamo maqribka yani casarka la ciyaaro kubadda casarka 5 la gali jiray meelaha ama 4 inta hor loo soo daadaw maqribka marka eedaamka la eedaamo kadib ninka noo qabtanka ama qofka meesha ka mas'uulka wuxuu oran jiray ciyaarta oo dhamaatay salaada safar oo laga gali jiray masjidka inta soo gaadhin xaafadda ku tukan jirtay oo jamac baa la sameeyay jiray marka waxay dacaayadaha noo sameeyeen intii naga ag xeeranayd ee asxaabtayada ku kubadda isla ciyaarna ee ayaga naadiyaasha kala xeroodii noo bixiyeen waan xasuustaa waxay oran jireen xeroodii oo kubadda dhameysay marka waxaa jirta wax xeer ah waxyaabaha kala yaabisid waxa weeye aan anagu sidii waad ku wanaagsaneedeen waqtigaas alxamdulillah ilaahay baa jidka toosan inagu hayay waxyaabaha waxa weeye marka kubadda dhamaato kooxaha kale waxa la sameeyaa shir baa la sameeyaa wax laga kacayo ama cishaay salaadii maqrib waxa ku burburtay adigoo dhan dee qofka qalbiga la ilaahay de iimaan ku jirana dee naftiisu kuma degayso bilaa salaad marka anagu taasi waan iska ilaalin jirnay laakiin waxyaabaha nagu dacaydin jireen wax kamid aan sii xasuusto xeroodi marka sidii xeroon noloda socdeen ayaa anaguna waxaan ku tashanay inaanu la hadlin inaanan yani arrinkaa falcelin aan ka dhiiban haddana waxaan rajeynay hadda inay dhammaantood mustaqbal wada leeyihiin asxaabtii nagu yeesi jirtay waxaad tihiin hebel iyo waxaad tihiin xerow waxaad tihiin dad miskiidka kasoo bixin
haddana kubadaha ciyaarahan iyo khamiisyadiina iska xidhnaada ay oran jireen way fara badan yihiin marka ceebaheenay ka mid tahay in qaybta kala yasto qofka wanaagsan in la dhiirigeliyaa wanaagsan in wuxuu ku wanaagsan yahay la tusaal wanaagsan ka xun ee meelahaas surwaalka jiidanaya ee waxaan xidhan ee riwaayadana in la soo celiyo oo wax loo sheego ayayna la isku ogaa laakiin in fairas bay la tahay in kii xumaa la dhiirigeliyo kii wanaagsanaana hoos loo dhigo insha allahu tacaala videoga intaaban kusoo koobayay waxaan odhan lahaa haddaba dhalinyar ahaan haddii aan maanta wax badan aan bal sheegnay in isbedelnaa la rabaa oo in bulshadeena anfacno in waxyaabo badan la nimaadno insha allahu tacaala ceebaha aynu leenahay aynu garanno iska bedelno ay jiraan wax canaana waa iga raali ahaanaysa insha allah mawduuca intaa baan usoo diyaariyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu